السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت برنامجك waxaa inoogu martay Daawud waa wiil Soomaaliyeed waxa dhalay hooyo Soomaaliyeed ana abtigi ah muddo la kala maqnaa maanta waxaan ku kulnay meel aan alaab ka qaadayna ayaan ku wada kulnay isagoo in muddo ismuga marka waxaan jecelahay inaan wareysi ka qaado aan weydiiyo Daawud qaab meesha ku dhashay magaalada ku dhashay hooyadii meesha ku dhalatay sidoo Soomaaliya uga soo baxay taariikh nololeedkiisa soo dhan marka Daawud ku soo dhaw barnaamijka وندوي هوا ما سنتها فرصة دايسيسي السلام عليكم أصحاب تقاليقة أو قرابة ملو البجوكتان يو سومالي وين سلام كدب مقعيقة وداود واي مقع به جابنيس واي أكيهيكو سايتو سو داود أكيهيكو سايتو واي أبهي وحكو بشي طوكيو كتازونا ماشي استشيبا قبل كاستشيبا هويونا وحكو بشي قبل كبنادر دقمدا يخشيد جارهان حافظ التوفيق ميزان كدوشة. أوكي داود قرمت أو تحلقين واحد الشيء ديسمبر 11 1989. أنا صومالي قرمت كصبح. صومالي واحد كصبح هاي after قهدي أو 91. أو 1991. أوكي أنت لو قضوا قاضي شامر. واحد قاضي لا تقول له قضوا. أوكي تقول له قضوا قاضي. لو قضى هو أنا كنت أنا قاضي وقته. لقدي له هوي. لقدي صومالي. أوكي هوي ده حكي كل وقتي. قبل كبنادر. قبل كبنادر. اوكي دول بنادري هويدا قدرت هويدا قبيلك سومالي وتقانا صومالي انت بدن قبائل لا شيغا ان 4.5 كسو جيدا مثلا وددك horta 4.5 ما عمسنو بس لكن قبيلكاغا وديغاغا بس لكن قبيلكاغا ما inaad ku faantid صح faantid laakiin inaad ku noolaatid qofku ma diido waa sax soo marka hooyo waxay u dhalatay qabiil Soomaaliyeed hooyo waay iraab oo mudlooda abgaal oo aslo waay Cabdiraxmaan Suleymaan ninka marka abtigaana waa maqlaysaan ha ku qaldamina inta badan hadda maanta meeshaan aan ku kulanay luqadda maxariga sidee ku baratay اوكي امحري ايثيوبيان كهورتا او شيء لقدان كو هادلو اوكي waxaan ku hadlaa luqadda oo Japanese-ka luqadda abeey Faransiiska meesha Djibouti ku soo barbaaray okay luqadda Carabiga luqadda Soomaaliga luqadda hooyo iyo luqadda Ethiopianka Amharic iyo Eritreanka iyo Bangladesh iyo Burma iyo Chinese Mandarin iyo English كمان لغة تايلاند لغة برما براتين كيف براتين برما تايلاند جو جري جامعة ماليزيا كولومبورا كسبها اوكي education كيف تقدرتي university عند مسكالجيس اوكي كالجيس داود ملايا انا صومالي كلها يس طبعا وقصود ويننا ان شاء الله تعالى قبل صومالي لو قدر من اختبار وعرفتها ما دام علي بدلوه صح سواء نقطه لكن بس marka ku arkaan maxay ku mudan dadkii waxa waa mid kana horta Soomaali way dib badan yihiin gaar ahaan hadii la fiirona dad fiican waa saxaantay sababta maanta xirkan aan gaaray Soomaaliya ka dambeeyo ma sha Allah saxaantay emotion صح sababta shaqada qabanaysi waxyaabo fara badan ku soo tareen taariikhka maartay dhibaato fara badan aan soo maray صح ma faantay laakiin Soomaaliya ku caawiya ya xirkan maanta aan gaaray Soomaaliya ka dambeeyo qofna ma laha ilaa marka dad oo fara badan marka ku nooshahay safiican ma faantay wax badan ayaad baranaysaa safiican Soomaalida qalbigooda nadiif ah carabkooda laakiin اوكي طبعا خلاص ربنا جيرو ان لفتكي وفوضى داود waxaan 4.5 ka waran wuxuu yiri ma aaminsan aniga laftirkeyga ma aaminsan waxaan aaminsan dadka inay equaliin ninka inuu walaalkay aan aaminsanahay haddana abtigii baan ay marka soo dhaw daawud soo marka Soomaali waxa sheegay Soomaali waxa ma taqaana hal midan dibka ugu weyn macna igu yab badnay qofka ibnaadanka dhalashada kuma siiyo صح كامل قادي كذا ما قادي صح dad far badan ayaa jiro oo macni hooyadiis Soomaaliya oo abiis Carabiya hooyadiis Soomaaliya oo abiis Italiana wax badan ayaa ninkaas maanta dhalashada Soomaali kama qaadan karo masinka faantay marka qofka markaste at least qofka dhageyso ama inaad baratid ama inaad qofku yahay inaad ogaato darabtid waqtiga qaaliga si faantay markaas qofkaas waad ogaan kartaa soo marka waxa jecesha qof kasta oo Soomaali ku dhashay ama hooyadii meel kale ka timaado inuu Soomaaliya yes soo marka dawladda farmaajo waxaan leenahay dabcan dad fara badan waxa jiro especially qaasatan xilliga aan ku jirno
waxaa jira dad fara badan oo hooyadood ay tahay Soomaali ama abood uu Soomaaliya laakiin dad kale ka soo jeestay Thailand ama Arab ha noqdo ama ha noqdo Italian ha noqdo ama European qaybaha kale ha noqdo ama Mareykan ha noqdo ama African American Jamaican whatever oo ahaado qof kasta oo Soomaali hooyadii ka soo jeeda ama abiyo ka soo jeeda waxaan jecelnahay inuu Soomaali noqdo in constitution ka taalo ugu darso su'aal kale ku weydiina maxaa la dhihi waayo dalka abo maxaa la dhahaa dalka hooyo okay taana wuxuu sheegay in qof kasta oo Soomaali ay hooyadii ay Soomaali tahay qaasatan ay taa macnaheedu wuxuu yahay qofka hooyadii ay Soomaali tahay inuu Soomaali dhabeeyo ani interviewga marka Mareykanka imanay labo dalasho ay siiyeen waxaa la dhahay jinsiyadda Soomaali maad ku galaysa Mareykanka ama jinsiyadda Japanese waxaan ku doortay Soomaali haddaan ku tusi karaa baasaboorkeeda baasaboorkiisa ninka waa yani qof walba meesha u dhashay ayuu leeyahay iyo interviewga waxaa la dhahay waxaan macnaha dadkii marka videoga marka dhigatay dad far badan ayaa jira dadka yaqaanaan Tunisia 2011 waxaa la siiyay